aan ku bilaabay maamulka magaalada Jigjiga waxa lagu qabtay kulan weynaha bahda garsoorka deegaanka Soomaalida kaasoo diiradda lagu saaray qiimeynta tayada adeeg bixinta maxkamadaha dib u habeynta garsoorka iyo sidii loo sii xoojin lahaa hufnaanta helitaanka adeega cadaaladeed. kulankan waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida, gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida, xubnaha guddiga garsoorka hay'adda bahwadaagta wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo gudoomiyaasha hore ee soo maray maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida. kusimaha gudoomiyaha maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdikariin Axmed Aadan oo furitaankii ka hadlay uga mahadceliyay ka qaybgalayaasha isagoona carabka ku adkay in muhiimadda ay leedahay in ka faa'iideysiga aqoonta iyo waayo aragnimadoodu ay garsoorayaasha sidoo kalena bahwadaagta si looga dardargaliyo dib u soo habeynta garsoorka hay'adaha deegaanka Soomaalida. kulan weynahan runtii waxaan u qabanay kulan weynaha lagu cadeeyay deegaanka lagu aasasay maxkamadaha deegaanka tirsigiisu ee 206 ujeedadaan u qabanay waxa weeyaan in lagu hago hay'adda garsoorka. runtii waa meeshii laga hagi lahaa hay'adda garsoorka la rabina ka soo baxaan talooyinka wax ku oolka u ah runtii hagaajinta nidaamkeena garsoorka. waxa taa ka garan in ay sidaa tahay cidda ka soo qayb galaysa sharciga lagu bayaabiyay dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha sare gobolada, garsoorka maxkamadda guud iyo maxaa la yiraahdaa iyo marti sharafta kale uu gudoomiyuhu oo mar walba ku marti qaado. marka runtii doorkan waxaan ku marti qaadnay dadkii sharci yaqaanka ugu sareeyay deegaanka. waxaan u yeernay gudoomiyaha guddiga joogtada ee arrimaha sharciyada ee maamulka ee golaha xildhibaanada deegaanka, taliyaha madaxweynaha arrimaha sharciyada, diinka kuliyadda sharciga ee jaamacadda Jigjiga, madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee Itoobiya laanta magaalada Jigjiga, maareeyaha maxadka tababarada hay'adaha cadaaladda iyo cilmi baadhista, xubno ka socday ururada humanitarianka oo sharci yaqaano deegaanka u dhashay, gudoomiyaashii hore ee maxkamadda guud. marka waad garan kartaa dadka culayska ay leeyihiin dadka aanu ku marti qaadnay. marka waxaan filaynaa runtii sanadka soo socda haddii la yidhaahdo gashiyo fara badan oo inaan ka helnay ayaan qabnaa oo aaminsanahay oo kolley naga caawinaya saan hay'adan dib u habeyn iyo ugu sameyn lahayn reform.